To slow the spread of COVID-19, many countries have contributed or introduced unprecedented measures at significant social and economic cost, closing schools and businesses, canceling sporting events, and asking people to stay home and السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. asxaabtayda qaaliga meel walba daafaha adduunka kaga sugantihiin kusoo dhawaada janalkayga emras. waxaan halkaani maanta aan rabaa in aan ka hadlo wacyigelinta cudurkan maanta adduunka ku faafay ee xiray xarumihii cibaadada iyo meel walba oo adduunka maanta looga howlgeli jiray oo dhan. cudurka marka uu bilow ahaa wacyigelin waan sameeyey, dad badanna waa ay qaateen, dad badanna waa ay ka mahad celiyeen, dad badanna waxay iska dhigeen in ay tahay wax qiyaali ah. balse maalin dhexdaas waxaan soo dhigay kilib yar oo ku saabsan wacyigelin iyo dadka hargebka qaba in ay joogaan guryahooda, laakiin layma dhagaysano oo layma maqlin. dadka qaarkiis ayaaba caytamay oo waxay doonaan iska dhahay. marka waxaan dhihi lahaa in aad wacyigelinta qofka walaalka uu ku siinaayo ama hay-adaha caafimaadka adduunka oo dhan ay ku siinayaan inaad qaadatid aad bay u fiican tahay. marka maalin dhexdaas waxaan soo duubay kilib yar oo ku saabsanaa magaalada aan deganahay ee Kiruna. dadka qaarkiis ayaa dhahay Kiruna ayaa idin yimid. Kiruna ma ahan. Kiruna waa magaalada aan deganahay. cudurka magaciisuna waa COVID-19 corona virus. soo dad badan wacyigelintii aan u sheegay waa ay qaateen, khaasatan dad qaar ka mid ah oo magaalada Kiruna ku sugan oo iiga mahad celiyeyna waa ay jiraan. dad xoogaa attack soo sameeyeyna waa ay jiraan oo si qaldan u hadlay oo laakiin jawaabtoodana ay si waafi ah loo siiyey. qofka marka sidiisaba haddii uu adig kuu soo jihaysto kusoo weeraro waxaa waaye waa la iska difaacaa. marka asxaabta barnaamijkan aan ka hadlayo ku saabsan wacyigelin sideedabu waxay ku timaadaa markii wax ay soo kordhaan, in wixii soo kordha in dadka laga wacyigeliyo, loo sheego. in daaweynta ka hor waxaa ka horeeya waxay tahay ka hortag. alwiqaayatu khayru min alcilaaj. marka barnaamijkii maalin hore aan soo duubay dad badan falcelintii ay ka sameeyeen, kuwana qaatay, kuwana kasoo horjeestay, kuwana qayaali ka dhigtay. laakiin dadka badankooda ay wacyigelintu si fiican u qaateen, mahad celinna ay soo jeediyeen qaarkood. hadda marka waxa aan leeyahay Soomaali Maxamed, cudurkan waa cudur adduunka ku faafay, waa cudur dilaa ah, waa cudur aanan u aabayeelayn qofka ha yaraado ha weynaado. dadka qaarkii ayaa waxay ku leeyihiin dadka da-da yarta ah ma taabanayo. before yesterday ugu dambeysay qof 13 jir ah oo Soomaali ah in uu u geeriyooday. taasina waa xaqiiq. ma eeganayo kaliya 65 and all that iyo wixii kasii weyn iyo waxaas maba eeganayo baalka. marka xanuunkan waa xanuun jira. haddii uu hergab ku hayo gurigaaga joog,
haddii aad xumad iska dareento gurigaaga joog. haddii wajaca iska dareento oo wajac kugu soo bilaabanayo iyo waxyaalo yar yar oo xanuun oo jirka ah, waxaa waaye gurigaaga joog. qofkii kusoo booqanayo ama qofkii kuu yimaada oo raba inuu kuu imaado, markaas waxaa dhahdaa brother I'm sick, I'm not feeling good, so when I feel better I will call you. waa u sheegi kartaa. qofkaaga xumaanaya ma jirto. qofkaasi waxaad ku samaysay safe, waa safe garaysay, because hadduu kuu yimaado oo kusoo booqdo adigoo xanuunka qaba aadanna u sheegin, uu agtaada fadhiyo ama wax yar dhinacaaga uu fadhiyo, uu maxaa la dhahaa aad sheekaysataan, so maybe tonight or tomorrow asigana wuu helayaa cudurkii, waa uu haleelayaa. haddii uu haleelane asiga markaa wuu sii qarsanayaa. hadduu qarsadana qof kaloo u yimaado qaadsiinaya, ama shaqadii uu tagayo gruubkii oo la shaqeynaya kolleegihiisa uu gaarsiinayaa. kolleegihii waxay gaarsiinayaan dadkii asxaabta meesha wada joogay. asxaabtii waxay aadaysaa xaafadahoodii kala gaarayaan, xaafadihii gaarsiinayaan. xaafadihii markii dhalinyaradii iyo maamooyinkii wixii ku nool ayeeyada ama awowaha ama aabbaha u nax, haddaa xanuunkaa qabtid wargeli, waa xanuunsanahay, qolkaas yaa la iisoo dhaafin. markaa u baahan tahay musqulne waa isdabooleysaa, afkaagii waxaagaa xirnaysaa, musqushaada tagay, waxay guriga joogana qolalkoodii kaa galayaan. markay danta lasoo dhamaysta kabacdi guriga aa gashan ayagana nadaafada caadiga galayaan. qolkaagaad ku jiraysaa. wax karanti waxaan HIV maaha. midda kale qof muslima ma tahay, allaha aaminsan tahay, allahaaga aaminsanaaw. maxaa la dhahaa qur-aankaaga aqriso ya. marka qur-aankaabana loogu sheegay in shifaa iyo raxmo uu yahay. if you are sick read the Quran. qur-aanka raxmad iyo naxariisa ku jirto iyo daawo. qur-aanka aqriso mar walbo. haddii ilaahay ugu talagalo in uu kaa qaado, uu kaa qaadaya. haddii ay ahayd tii kuugu dambeysana waad ku baxaysaa. cudur looma dhintay, ajashaa loo dhintaa. ajashaada maalintaas meeshay ku go-an tahay waa ku baxay. marka dadka kula dhashay ee qaraabadaada ah, walaalahaaga ah, ee maxaa la dhahaa da-da ah, u tur. cudurka ma qabtaa gurigaaga joog adeero. hergeb ma qabtaa gurigaaga joog. ceeb ma ahan. how many people have a cancer? how many people have HIV? how many people have HIV AIDS? is a difference, HIV and HIV AIDS. so marka waxaa waaye inaad taxadar yeelataan, walaalihiina soomaaliyeedna aad ka fakartaan, ummadda kula nool ee deegaanka kugula noolna aad maxaa la dhahaa aad ayaguna u turtaan oo u naxdaan. xabiibkeena moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi, haddii magaalo cudur ka dilaaco, haddii aad ku jirtayna ha ka bixi. haddii aad u socotayna ha u safrin. why? wuu faafayaa. I'm in Kiruna, my friend is coming from Yelavari. when he come here, meeting on la sameeyey, I'm sick, so when he go back to Yelavari, after that he gonna be sick also, and then wuxuu u qaybinayaa other people in around Yelavari. so those two maxaa la dhahaa degmo way cudurkii waa saameynayaa. sayidina cumar waxaa waaye
sigoo magaalo usoo safraayo magaaladii usoo socda markuu usoo dhawaadaa waxaa loo sheegay in magaaladii daacuun oo ka jiro. cumar oo magaaladan daacuuna ka jiro, la tashiyuu sameeyey. la tashi markuu sameeyaa waxaa la lahay dadka waxay ugu jawaabeen qaarkood bartaada ka noqo. laba saxaabi inay la socotaan jeclahay haddaan aan xasuusanin way xanaaqeen qaarkood. marka waxay dhaheen waxaan waa qadar ee sababtaad ugu noqonayso maxay tahay. wuxuu dhahay qadarta naftirkeeda waa wax ilaahay keenay, anna qadartan aan ugu taxadiraya because qadar xag alla ka timid a magaaladani ku habsatay. soo adna noqoshadaada qadar kala waayo inaad ka noqoto. soo marka walaalahayga soomaaliyeed waxaan leeyahay haddaad xanuun qabto magaaladaada joogto magaaladaada joog. haddii lagu dhahay guriga ku naso adeerow naso. iskuulki waa lagaa joojiyay guriga joog. shaqadaada ma aada ahaa shaqadaada tag gurigaaga. no other place for cafeteria maxaa la dhahaa meelaha kale waxyaalaha kale. soomaaliya hadda dad baa waxay ku leeyihiin cudurkani waa cudur oo maxaa la dhahaa dowladda lacagay ku raadsanaysaa intaasoo milyan bay ku qaadanaysaa. maalin dhexdaasaan fiirsanaya. that's a shame. wax jira maaha. xanuunka waa jiraa adeerow taxadar. gacmahaaga dhaq. dadkii aanan tuka jirinow hadda tugta. ilaahay u tooba keena. waddada saxan kusoo dhaca. xabad sawdada isticmaala. ina xabata asawdaa dawaa-un likulli daa'in ila almowt. geeri iyo duqnimo waxaan ka ahayn oo dhan daawe u tahay. ya marka isticmaala. gaalada kanay ku ordeen. anaga horaan isku gacmaheena nadiifsan jirnay oo wax walba aan ku dadaali jirnay. haddana waa sii badinaynaa. sii badiya adkaartay ducada. ummadiinana haddaad xanuun ku qabto adeerow ha u geyn guriga joog. taasi tale iga tahay. marka waxaan leeyahay asxaabteyda qaaliga haddii aad ku cusub tahay janalkayga emras waxaa lagaa codsanayaa inaad subscribe saarto. waxaana halkan kuugu soo gudbinaynaa barnaamijyo aada u xiiso badan inkastoo maalmahan aan kala nasanay oo xoogaa xanuunadan iyo waxyaalahan la sheegayo darteed aan loo kala mashquulay. soo waxaa idin leeyahay intaan iyo tan iyo mar kale aan ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo. كما طلب سنة بس تعدل